Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan salaamay asxaabteyda soo dhawaada bartaad nagala socotaan waa Sahras channel. Soo dhawaada walaalaha qaaliga ah. Maanta sabaayada quruxda badan ayaan sameeyay. Waad ka faa'iideysaan soo dhawaada. Channelkana subscribe iyo saara, like iyo comment iyo share la wadaaga asxaabtaada. Insha Allah cashiro kale oo qurux badan waan idin soo wadaa. Ramadaantii ayaa noo soo dhow. Ilaahay nabad ha nagu gaarsiiyo. Asxaabi jikada ayaan hadda tagaynaa. Sida aan u sameeyay ayaan la wadaagaya. Waxaan halkan ku haystaa bakeeri iyo haaf caano ah, 4 koob oo bur ah iyo xabad ukun ah. Intaas ayaan ka sameeyay. Waxyaabaha kale ku darayna waan intusi doonaa insha Allah. Caanaha aan haysto waa bakeeri iyo haaf, waana soo qandiciyay kuleel aad maaha, qandac yar fardiiris waaye. Xabada ukunta ayaan ku ridanayaa baaquliga. Kadib waxyaabaha kala dhan ayaan ku soo dardarsanayaa. Caanaha haaf ayaan ugu darsanayaa. Haaf ayaan hadda ku shubtay. In yaroo milix ayaan ku daray. 2 malgacad oo sokor ayaan ku darayaa. Okay, waa qasayaa marka intaas waa caanihii iyo ukuntii iyo sokortii iyo milixdii weeye, ma fahanteen? Intaas ayaan si fiican u qasayaa. Kadib hadda waxaan ku darayaa marka burkii. 4 koob oo burka ah, 3 koob bur cad waaye, 1 koobna bur madow waaye. Burka qamadiga oo madowga ah waaye, ma fahanteen? Adiga isku nooc aad ka wada dhigan kartaa, wax macno lama ahan. Marka asxaabi waan ku wada shubayaa 4 koob. Waan qasayaa, gacanta ayaan ku qasayaa. Caanaha haaf ayaan ugu darsanayaa. Inaba caadi maahan, sabaayad qurux badan oo inaba aan caadi ahayn ayay iigu soo baxday, aad u macaan, soft ah. Marka soo tijaabiya haddii wixii fiican oo samayso waa inaan la share gareeyo asxaabteyda maadaama aad tihiin. Waan in kaga faa'iideynayaa wixii aniga i anfaco. Waa kaadee. Si fiican ayaan u xashayaa. Waa kana markii aan xashay oo aan soo dhameeyay, saliid yar ayaan dusha ugu shubay. Bac ayaan afka ugu xirayaa, waan dhigayaa cabaar hanoo yara nasto. Waxyar kadib ayaan ku soo noqonaynaa 10 daqiiqo camal hanoo yaalo. Asxaabi waa kana waan ku soo laabanay. Waxaan soo dhigtay meeshii aan ku fidin lahaa. 2 qaybood oo isleeg ayaan ka dhigayaa. Kadib waan fidinayaa marka. Soo ma aragtaa? Qaybtan saxankan ayaan saaranayaa, qaybtan aan fidinayaa. Waan ballaarinayaa, xabad ballaaran ayaan ka dhigayaa, looxaas dhan waan gaarsiinayaa. Si khafiifna waan ka dhigayaa, burbur inay ahaato lama rabo. Waa ka waan ballaariyay, soo ma aragtaan? Xabad ballaaran oo khafiif ayaan ka dhigay. Marka waxaan soo qaadanayaa subag. Adiga saliid iyo waxa doonto waa isticmaali kartaa, laakiin aniga hadda subag ayaan isticmaalayaa. Xaraf buu u sameynayaa iyo tasti macaan. Marka waxaan haddana ku shubayaa in yaroo bur ayaan dusha kaga shubayaa. Waan soo laabayaa marka geeska ayaan ka soo laabayaa. Sidaas ayaan ugu soo gadgadinayaa. Sidaas ayaan u laabay asxaabteyda. Marka sidaa u laabo waxaan soo qaadanayaa midi. Waan jarjarayaa marka. In yar ayaan u jarayaa, sida gabal-gabalka ayaan u jaranayaa. Waa ka asxaabteyda waan soo jarjaray. Waxaan soo qaadanayaa saxan aan saarto. Saxanka bur yaraan hoosta kaga soo shubay. Qaybta kale oo hartayna sidaa aan baan u soo jarayaa. Markaan soo wada saaro saxanka ayaan isku soo laabanaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Waa kana asxaabi waan soo wada jaray. Sidaa ayuu igu soo baxay, waan yara dhiganayaa. Hadda waxaan samaysanaynaa suugadii. Toon iyo kabsar ayaan halkan ku haystaa, basal iyo yaanyo iyo barandho ayaan haystaa iyo hilib. Marka haddana waan jarjarayaa, hilibkii ayaan jaranayaa. Waa hilib ari. Si yar ayaan u jarayaa, qaybta barafka ayaan ka soo bixiyay. Marka uu ii dhalaalay hadda barafkii ayaa ka baxay, waan jarjarayaa marka. Maasha Allah. Waxaan baroortan ka jarayaa, baroorta ciyaalkayga ma jeclo. Marka asxaabi waan soo jarjaray, haddana basasha ayaan jarjaranayaa.
kadib waxoo dhan waan soo wada jarayaa barandhada yaanyada waxoo dhan markaan soo diyaariyo oo aan soo wada jarjaro ayaan in soo noqonayaa. Waa kana asxaabi markaan soo wada diyaariyey digsi ayaan dabka soo saartay, waxaan kusoo shubtay haaf yar oo subaga, basashiina waan ku shubay, marka waan shiilayaa, basasha ayaan shiilanayaa. Markay shiilantay waa kana waxaan kusoo darayaa haddana hilibkii iyo basasha ayaan haddana aan shiilayaa. Diyaar waaye. Waa kana haddana yaanyadii aan soo jarjaray ayaan ku darayaa. Marka asxaabi waan daboolayaa. Carfiska ayaan ku darsaday xawaash, filfil, babrik, waxyaabaha waxaad haysataa adiga ku darso. Toonta iyo kabsartii aan soo tumayna waa kana mooye ayaan kusoo tuntay. Waa kana asxaabi way ii kartay, biyo kumaan darin, yaanyadii wixii dhan way isku bislaadeen. Marka hadda waxaan ku daray in yar oo milix ah. Waxyar kadib aan kusoo laabanay, waa ka isku milantay wixii oo dhan oo isku smoothie bay isku noqdeen. In yar oo waxaan ku darayaa yaanyo shiidan ah oo yaanyada oo kartoonka ku jirta. Barandhada ayaan hadda ku darayaa. Marka hore waxaan ugu dari waayay ma jeclo barandhada inay ku dhex jajabto. Bakeeri biyo ayaan ku daray. Barandhada iyadoo sideeda inay bislaato ayaan jeclahay aniga, inay ku dhex burburto ku dhex milanta ma jecli. Marka asxaabi waa kana way ii diyaarsan tahay. Hadda uu karay wax yar ayaa u haray. Waa kana markii uu karay oo u dambeysay hadda dabka waan ka daminayaa, sabaayadii ayaan ku laabanayaa. Sabaayadii ayaan dubanaynaa hadeer. Okay. Waa fidinayaa. Sida warwareega ayaan rabaa inay iigu soo baxdo wareegsan. Daawi ayaan dabka soo saaranayaa asxaabay. Waa wax aad u fudud soo maaha, lagama sheekeyn karaan ku yiri. Daawihii waan soo saartay, saliid yar ayaan marinayaa, wax yaran ku masaxay. Waan gidinayaa. Okay asxaabay, sidaas ayay iigu soo baxday sabaayadii. Xabada labaad ayaan saarayaa. Maasha Allah. Waa kana markii aan soo dhameeyay sida quruxda badan ayay iigu soo baxday. Soft waaye wallahi lagama sheekeyn karo. Ka faa'iideysi wanaagsan. Waa inoo fiidiyowga dambe hadduu Ilaahay yiraahdo.